murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo sidoo kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka Barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka dhaxeeyay xifaaltan siyaasadeed oo deegaamaysan oo madal ay ka qayb galeen isugu jawaabay halka uu Dr. Maxamed Cabdi Gaboose soo jeediyay in nabadda la ilaaliyo isla markaana wax kastaba ay ka horeyso in nabadda la ilaashado xalay aan magaalada dhexmaraya waxaan arkay arday fara badan oo jaamacadaha ka soo baxaya oo qurux badan oo dabada ismaysta guryo badan oo muraayada ah dad u labisan si aad u qurux badan quruxdii xalay mid kaloo aad u qurux badan ayaa halkan ka muuqata waxaa la baxaya waxaa iftiin baxaya waxaa kalaamiyay sharaf naga muuqata waxaa dhan hooyo waxaa waa nabadgelyada haddii nabadgelyo la waayo waxaan jiri maayaan waxaan noqon lahaa wax kaste oo kaste intiraafka ilaahay baa nasiiyey intiraafku nasiiyeyna waa nabadgelyada hareeraheenna eega dalalkan leeya waa la intiraafay halkii marayaan eega cadaway dhibaatada ku hareeraysan eega waxaan ku tali lahaa anugu nabadgelyada labada gacmood in isugu geyno waalidiintii barbaariyey ubadkana waa u ducaynayaa dhankiisa isaguna waxaa hadalkaasi qaatay oo ka jawaabay arrinta uu soo jeediyay Dr. Gaboose murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro isagoo ku jawaabay nabadda waxaa tiiro waa cadaaladda Soomaalidu waxay tiraahdaa rag cadaalad wada sidii cawska kariya geestiisa isaguna waxaa hadalka qaatay isla markaana in nabadda la adkeeyo ku raacay isla markaana ku ayiday Dr. Gaboose ganacsade aadan baradho oo isagu kamid ahaa gudidii isxilqaantay ee ganacsatada ahayd ee dhexdhexaadinta ka dhaxwaday xukuumadda xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale siyaasiyiinta urdoonka iyadana waxaan ku sii laday asaab eegay baad dagaal isugu geeyo noloshu waa nabad wax walba waa nabad waxa ka dambeeya marka baasha iyada aan ilaashano alla ilaahan marka uu dalaa waxaan dhalinyarada uu dalaya xalee dhalinyarada mustaqbalkiina aad u guulay mustaqbalkii maanta mustaqbalkooda li hooyada kana waa socona mustaqbalkiina ay fayaan aad u guulay hal cadow ka dhiga taamalo baahi oo ma cadowgaas babaasha laga dhameeyay Maxamed Ducaale Cabdi iyo Yuusuf Xudayfi Horyaal TV Hargeysa.